عجيب والله بالله وحنا مرنا بلو ذو خادكين وحنا مرنا لأمينكين وكل وادنا أكتهين لباتنا عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتك وحرين جنالك عمر كي يوتيوب وولالكينا عمر هدو إلهي كرالي نأخذ وحن رجينا يا عاوة أنا إذن سوقود بي برنامج هدو حيسا بدن هدو إلهي كرالي نأخذ كل وان جعلناها مارتين أن إسبدل وين أن كأنه محالتها مرور بمعركتي وح فكرة دو أما وحياب إذنك خصلي مثلا وحياب إذنك فرحينا إذن كانوا سوماليين وحن جعل وحل بو إذنك أحيساسا مس وحل بو إذنك فكر كينا هنا نسوقود بيو وحل بو نولشي نكسب سنة وحن جعلها إنا إذن لك محالله إنا نلا خيبصدو أنا وحن جعل وحي نولشي دو كسب سنة إنا نلا خيبصدو هدو إلهي كرالي نأخذ meel walbaad joogtiin waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan Soomaaliyeed aad idin jeclahay hadduu ilaahay karaale noqdana caaw waxaan jeclahay barnaamij ku saabsan macnaha xanaaqa ama maxaaladaha degdega qofka bini aadamka markaas ku niyada kaga soo dhaco ha ahaato ayadoo markaas wax easy ah ma aragtay loo degdegin ama ma aragtay problem saas weyn lahayn inaad haddana xanaaqa aad degdegsato misna aad sahalsato sheedaankan kugu dhiirigeliyo ma aragtay inaad wax walba fudeed ka dhigato هذا واحد رأى إن إذن محلها إذن تسوي فيديو كسابسن فيديو معناها كشيكينايو قف كمات حناخي سدبات هذا بدن وكيني كرو مثلا حناخ مركا أما دق أو نور شيطان كوفرايو دبات هذا إلا ذا هذا فيديو كان إلى فيري وأنن أو محلها جوليس وصوص صعدو سأوجد فيديو كان أورو إنه جوليس إمادو مركا وأوجدين جولي حوجه وحالة جد حصلي إن لقفرو جوليجي مركا هسيها أهاتي وقت جود الرصدي هبدا الرصد محمو وحا دعday gadaal meeshu sheedaanka iskanaar lahaa waqti yar xataa u kaadin lahaa waad u jeedin wuxuu sameeyay albaabkii ayuu wuxuu ku soo qaaday gaarigi misna ma ogo gabadhiisa soo socotay oo rabtay inay albaabkii ka furto haddana asigoo degdegsan misna xanaaq ku furan ayuu gaarigi xoog inuu u soo waday ayuu gaarigi baawarku ku soo furay waa ka hadda musiibada meesha taalasaad u jeedaan videoga ma aragtay aad ka arkaysaan ودبات أدي أدوين سببتها حناخي هذا أو سببي ما أنت الحمد لله قبل يسميسن دي من وضوء جيتي وقبل إنه نورشة هاي عارف ماذا خبطة إلهي عارف ماذا سي لكن سهدنا عرضي وحي تحمد أدي أدو دبات بدن سببتها مركز حناخذ أما دبات ما أركت أما قاسة واحد جعش أنا نخسكوا هالشو وأركتها ما أدوحل بالصبر الله وترجلي إلهي وحول وترجلي أنا قد مدي صار هاي إن أدور خاد مرور بقى موجينه إلا إن حد أدور خاد موجينه وحي مرور بكترجمة يسا أدون مدينة marka waxa mar walba fiican meeshaad mar walba ka xanaaqi lahayd misna aad ka degdeg lahayd misna aad fududeysan lahayd dhibaatada markaas jirto wallahi aad ay u dhib badan tahay cajiib kulli arikan ma u maleynaynin inuu ma aragti inuu saan u dhacayo waa arin aad halis u ah nafsada xataa markaas qofka aad jeceshahay nafsadiisa sabab karta inay go'do hadda waa kan uu arkaysin videoga ninkii uu soo degdegay asigoo xataa kulli mala soconin gudaha wixii ka jiro dadkii inay mashquulsan yihiin miya jiifaan maxaa problemo jiro inuu waqti u kaadimoosan siinin waqti wuxuu ku degdegay inuu maxaaladaha albaabki gaariga ku furo haddana waxa ilaahay qadartiisa noqotay gabadhiisa inay soo baxdo oo baawurkii maxaaladaha sidoo ku dardaro alxamdulillah ilaahay kaga mahad celinayna sababto ilaahay ayaa midka xayidila xayisu noole midna dila haddana gabadhi waataa way nooshahay way caafimaad qabta oo maanta wax dhib leh ma qabto laakiin waxaan dhihi lahaa mar walba xitaa nafsad walba bini aadam ah inaysan xanaaqeeda aysan ku degdegin inaysan xanaaqeeda uusan ka faa'iideysan ibliis sababtoo ah markaad xanaaqsan tahay waxa fiican inaad ka cawdu bileysato sheedaanka wallahi waxa aaminsanahay haddaad acuudu billahi min ashaydaani rajiim siya niyadaada san haddaad u dhahdo inuu sheedaanka ilaahay kaa qabanayo laakiinse haddaad adigoo xanaaqsan masnadsanka taagaya inaad soo degdegto haddaba waxaad la socotaa adiga fikirka kugu jira waxaa ka weyn ilaahay awoodiisa ilaan ilaahay awoodiisa ayaa midda mar walba dhacdo midda mar walba suura gasho adiga taada ma suura gasho waxaa laga yaabaa boqolkiiba hal inay kuu suura gasho marka ha iska dhigin qof isku filan oo kaamil oo wax walba samaysan karo wax walban waxaa ka muhiimsanaa waxay tahay dulqaadka nafsadii dulqaadataa unbaa guusheeda gaarta ilaahayna addoonkiisa waa u jecel yahay midka sabarka badan oo sabra oo maxaa la dhahaa oo wixii xataa dhib ku dhaco ama dhibaato ku dhaco waad ogtihiin nebi daa'uud dhibaatada oo u sabray maxaa la dhahaa xanuunkii u maray marka waxaa mar walba muhiim ah waxay tahay inaad mar walba sabarto oo dulqaad samayso oo ma aragtay ilaahay isku dhiibto inaad addoonta ilaahay aad u cadeyso addoonnimadaada aad qirto ilaahayna wuxuu raali kaaga noqonaya waxay tahay waxaad jeceshahay si fudud kugu siinaya laakiinse haddaad isla weyni iyo kibir iyo inaad nafsadaada aad ka dhaadhiciso inaad awood leedahay misna inaad isku filan tahay wallahi dhibaato badan ay keenaysaa waa mid adiga noloshaadana anficaynin waa mid aad noloshaada halis ku ah waa mid mar walba noloshaada u keeni karto inaad musiibo ama problem ama caqabado
badan inaad maaragtay aad mutaysato walaalkayga ama walaashayda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa waxay tahay inaadan degdegin haddii xataa xanaaq dhaco ama qof walaalkaaga dhibaato ama xumaan uu ku geysto ha u degdegin ama xanaaqaaga ha u muujinin inaad kaga aarsato sababtoo haddaad waa aarsanaa dhahda dhibaatada ay keeni karto waad ogtahay inaad adigoo niyadaada ku jira inaad wax aarsato ayaa haddana waxa kugu soo bixi karaa waxay tahay inuu adiga dhibaatada kuu laba jibaarmato hal shay kugu dhacay ama wax yar oo daqiiqado yar aad dulqaado waysay ayaad waxaa laga yaabaa inaad dhibaato badan u keento marka waxaa idin dhihi lahaa waxay tahay walaashayda ama walaalkayga wiilka ahow ha ku degdegin inaad mar walba ma aragtay niyadaada ka dhaadhiciso wax markaas dabiici ah ama sahlan inaad go'aan ismarka ka qaadato sababtoo ah go'aanka la qaataa waxay tahay dhibaato badan kuu sababi karto go'aan haddaad mar walba gaaraysid waxaa fiican mid markaas muhiim ah oo adigana ku dhibaataynayno qof walaalkaaga dhibaataynayna inaad gaarto laakiinse ma ahan go'aanka markaad qaadanaysid aad ka dhigto mid adiga biri dhibaato kuu keenayo adiga xumaan kuu keenayo adiga culeys badan kuu soo fuulayo sababtoo adiga addoon ilaahay aad tahay waxaad maanta kaamil aad ka dhigi kartid ma lahan ilaahay unbaa waxba kaamilkaaga dhigi karo waxaad jecesha wax ka fiican ilaahay baa ku sii karo walaasheeda ama walaalkay waxaa idinka codsanayaa inaad isku dayin mar walba degdega inaad mar walba isku daydaan waxaa fiican inaad dulqaad samaysaan aad sabar samaysaan wallahi waxaa muhiim ah waxay tahay qofka walaalkaaga maanta hadduu xumaato ama dhibaato ku geysto waxaa ka muhiimsan mataqaanaa inaad ilaahay dartiis kaaga cafiso hadda maanta waa arkaysay hadda videoga nii daaray nin walaalkeena ayaa maxaa la dhahaa asigoo caraysan kisyar albaabkiisa laga furi waayay oo ma aragtay xanaaq darteeda ayaa wuxuu ilaahay qadaray inay gabadhiisa shil ku gasho alxamdulillah meesan dhiman waad aragteen videoga waa idin tusay marka walaasheeda ama walaalkeega ha ku dayin ma aragtay nafsadaada caraha u hogaaminin nafsada walaalkaa khalad wuu kaa gali karaa waana midaasna xaliyan ka hadlayn walaalkaaga khalad buu kaa gali karaa walaashaada khalad bay kaa gali kartaa laakiinse ha degdegin oo wuxuu kuu geystay ha ku degdegin inaad maaragtay ka argudsato inaad u sabarto aad u dulqaadato muuji sababtoo ah dulqaadkaa shay aad iyo aad muhiim ah kulli xalina waan ka hadlay barnaamijkan mid maaragtay wax yar ka tarjumayo marka waxaa mar walba muhiim ah waxay tahay walaasheeda ama walaalkeeda inaadan degdegin xanaaqaagana aad yarayso markaad xanaaqsan tahay aad niyadaada ku sasabto inaad ma aragtay addoon ilaahay tahay inaad mar walba shaydaanka iska naarto haddaad mar walba shaydaanka iska naarto ilaahayna shaydaanka wuu kaa qabanayaa xumaanna markaas ma aragtay ilaahay kuuma horseedayo laakiinse haddaa mar walba xumaanta sahalsato aad degdega sahalsato mas go-aanka aad sahalsato beri mid aad ka shalaydaad mar walba dhexda ka taagnaanaysaa marka intaadan shalaanin bilfadan waxaan ku dhihi lahaa walaashada walaalkeeyo ka taxadir wixii hadda ku hor yaalo waa ka gaari kartaa ee ka gaar bilfadlan ha degdegin waxaan ku dhihi lahaa mar walba go-aanka dhaqsida ha gaaraysiin iska dhaafa waxaa mar walba idinka codsanaya waxay tahay go-aanka dhaqsida aad gaaraysaan inaad iska yaraysaan oo ilaahay dartiis wax walba ku cafisaan ilaahay unbaa midka noo naxariista ah ilaahay ayaa ah midka cadaabta iyo jannada gacantiisa ay ku jirto marka walaashan iyo walaalkeena marnaba ha u xanaaqin hana ma aragtay go-aan ha ka gaarino sida ugu dhaqsiyaha badan sababtoo dhibaatadiisa way badan tahay xumaantiisa way tiro badan tahay haddaa mar walba dhibaato ama go-aan aad gaarto mase aad dhaqsi aad u fikirto dhibaatada adhow biri adeeg kugu soo noqonaysaa birina waxaad geysatay kulli ha u shalaynin ilaa adiga ayaa shalay dhibaato keenay maantana ha ka shalayno ha dhihin ma aragtay wallahi aysan shaam uma leenaynin haddaa saan ogaalaha saanba sameyneen waan kaa waaninaya walaasheedii ama walaalkayga khaalig ahow waxaa mar walba idinka codsadaa waxay tahay hadduu videoga kusoo gaaro fadlan inaa ii sheer garayso soomaaliweyn meel walbay daafaca caalamka joogta inaa ii gaarsiisaan وولكن عمر إدريس غيرت كل حين channel عمر كي يوتيوب بالفضل وحيد كعصنا يا واحد فيديو على فيديو قال لي هدوك سوقر إنا شير كريسو إن شاء الله كو كلو كعصب channel عمر كي ونفضل وحيد كعصنا إنا سبسكرايب كي تابتان قبل كان كودرتان هدو إلى كلام وحن جعله برنامج شاشة برنامج بدن أو ما عرفتي wax oo markaas nolosheen horumarin karo ama ma aragtay caqabad noqon karto aan isbedelka gaari karno ayaan jeclahay idin soo gudbiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu